agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa maanta furay kulanka warbixin sanadeedka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee sanadkii 2022 kulankani oo socon doona muddo 15 maalmood ah ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha xogta caafimaadka ee gobolada dalka mas'uuliyiinta xogta caafimaadka ee xarunta guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo saraakiil ka socotay hay'adda UNIFPA ugu horeyn waxa ka hadlay madaxa xafiiska kaydinta xogta caafimaadka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa uu ka warbixiyay kulankan iyo muhiimadiisa aynu gali doonaa inaynu qiimeyn ku sameeyno diiwaangelinta dhalashada dhimashada guurka iyo furiinka oo dabcan ay wasaaradda farbadan inagala soo qayb gali doonaan markaynu dhamayno warbixin sanadeedka wasaaradda horumarinta caafimaadka dabcan waa shir aad iyo aad u muhiim ah oo ay ka soo bixi doonaan labada warbixinood ama labada ribood midina waxqabadkii wasaaradda horumarinta caafimaadka sanadkii la soo dhaafay oo dhan waxa weeyaan uu ka hadli doono ta kalena ay iyaduna ka hadli doonto dabcan heerka imika ay taagan tahay civil registration and vital statistics waxa la yiraahdo oo ahayn diiwaangelinta dhalashada dhimashada guurka iyo furiinka sidoo kale waxa halkaasi ka hadashay Maryan Alawi oo ku hadlaysay magaca hay'adda UNIFPA oo wasaaradda horumarinta caafimaadka kala shaqeysay hirgelinta kulankan iyada oo ka warantay ka hay'ad ahaan sida ay mar walba diyaarka ugu yihiin inay wasaaradda kala shaqeeyaan arrimaha horumarinta xogta caafimaadka waxaan bilownay inaan la shaqeyno wasaaradda horumarinta caafimaadka si aan u falanqeyno health information system datadooda sanadkana alxamdulilah waxaan fursad u helaynaa inaan report dhammaystiran inaan la soo saarno annaga technical support siinayna si aan u ogaano gaabka ka jira iyo wax walba oo mandate-ka UNFPA-na dhinaca daatadaan diyaar u lanahay inaan gacan ka siino si insha Allah evidence based planning ay ku saleeyaan shaqadooda ku jaangooyaan shaqadooda iyo qiimeyntooda ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo kulankaasi furay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda kulankani iyo sida ay muhiimka u tahay in ka wasaarad ahaan dib loo eego warbixin sanadeedka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee sanadkii dhamaaday aqoon isweydaarsigan ama kulankan ama workshopkani aad iyo aad buu muhiim ugu yahay wasaaradda horumarinta caafimaadka laba sababood labadaba inaynu helo warbixin sanadeed horena waynu u soo saari jirnay laakiin inaynu helo warbixin sanadeed dhammaystiran oo indicatorskeedii leh oo waqtigeeda ku soo baxdaa waxay ahayd muhiimadda wasaaradda horumarinta caafimaadka waana arrin runtii aad iyo aad u muhiima muhiimadeeda ugu horeysaana waxay tahay runtii inaynu sanad walba ogaano wixii ay wasaaraddu qabatay halbeegyada aynu hiigsanaynay wixii aynu gaadhnay halkoodii wixii aynu ka hooseyno iyo wixii aynu dhaafnayba halbeegyo aynoo qoran oo aynu doonaynaa inaynu gaadhno program walba halbeegyuu leeyahay halbeegyadaasi inaynu ogaano oo aynu gaadhno kuwii aynu ka hooseynana aynu ka wada hadalnaa waa arrin aad iyo aad u muhiima muhiimadda labaad ee uu leeyahay inaynu helo warbixin sanadeed hufan oo dhammaystirani waxa weeye inaynu wasaarad ahaan la wadaagno dadka aynu wada shaqeyno wixii aynu qabannay iyaguna ay halkaa ka arkaan waxqabadkii iyo inbutkii ay geliyeen wasaaradda ciddii aan wasaaradda soo marin ee dhinac martayna ay aragto wixii ay qabatay inaanu ahayn wax ku jira warbixin sanadeedkii si mustaqbalka dambe iyo sanadka dambe ay partnerska iyo wasaaraddu ay si qurux badan oo wada socoto iskula jaan qaadaan marka warbixin sanadeedkani kuma koobno oo qura wasaaradda caafimaadka
waxaynu la wadaagi doonaa cidda ay inaga wada dhaxayso nidaamkan partnershipka ah ee aynu ku wada shaqaynayna partnerskeena iyaynu la wadaagi doonaa donorskeenu la wadaagi doonaa aynu odhan doonaa sanadkan waxaasaa noo qabsoomay ciddaasaa nala shaqaysay ciddaasaa waxaa nagala shaqaysay wasaaraddii halbeegyadeedii waa caynkaa sanad walbana waxaanu doonaynaa inay noqdaan warbixin soo baxda oo wakhtigeedii soo baxda maxaa haddaba loogu baahday workshopkan sanad walba waynu samayn jirnay warbixin sanadeed ama aynu af soomaali ku soo saarno ama iyada oo english aynu bartnerka ugu talagalay aynu soo saarnay tayada warbixinta aynu soo saarayno wakhtiga ay soo baxayso cidda soo saaraysa waxaas oo dhammi wuxuu ahaa hawl taagan oo marka aynu sanadka aakhirkiisa qabanayno retreatka ayaynu guddi u saari jirnay warbixinta qorta deedna wakhti bay qaadan jirtay dib looma eegi jirin inta badan partnerska lamaynaan sheergarayn jirin markaa sanadkii dhoweyd waxaynu gaadhnay go-aan ah inaynu soo saarno warbixin sanadeed dhammaystiran oo standard ah oo aynu la wadaagno adduunyada wasaarad ahaan iyo qaran ahaan waxaynu qabsannay labadaba waxay keeni doontaa warbixintani markaynu isku dabaridno aynu isku wada geyno sida aan iminkaba ka hadlay inaynu si widely u baahino oo aynu gelino websaytadeenna oo aynu la sheergarayno leefaliska kala duwan ee partnerka aynu leenahay ama dadka aynu ku bahownay wax u qabashada ama wax ka qabashada howlaha caafimaadka ee qarankan